السلام عليكم دمانتين مقعي وسهرة عبد محمود وحن لسعودي ديليجيت كيمي صوماليا قارها وحن كيمي بنتلاند ستيت اوف صوماليا هادسنتين وحن aad ugu farxay caaw markaan dadka arkay meesha fadhiyo alxamdulillah rabbil alamin ilaahay mahadiisa ku ah dumarku waa badan yihiin markaan arkayna dhalinyaradu aad bay u badan tahay taasna aad bay ii dhiirigelisay waana ku farxay dhabtii maadaama qof dhalinyaro ah wadankii anigu waxaan la hadlayaa gaar ahaan dhalinyarada wadankii baan fariin uga waday talana waan wadaa waxaan rabaa labadaba in la iga gudoomo haduu Ilaahay idmo waxaan wadaa fariin oo ah wadankii aniga ii jeedaan dadka wadanka khaladka ka aaminsano anaad ii jeedaan wadankan ku koray ku dhashay waxna ku bartay dadka nooga yimaado dibadda waxay nagu dhahaan oo Soomaaliya koronto ma lahayd qaybtood Soomaaliya koronto iska daayay dad dhisan oo yani alxamdulillah rabbil alamin aqoon iyo cilmi iyo garashaba iyo waaya aragnimoba dadka kale uga badan ba Soomaaliya ka soo baxay dhowr iyo 20 sano burburka ahayd dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan u wadaa qof walba halkan soo istaago caaw wuxuu lahaa waxaan u maleynayaa qofka ugu yaray soo istaagay inaan ahay qof walba caaw halkan soo istaago wuxuu lahaa aynu qarannimo doonno aynu qarannimo dhisno aynu qabyaalad dayno waxaas iska dhaafa dhalinyaro waxaas oo dhan ma aragteen iska dhaafa wadanku dhalinyaradu sugaya dadkan hadeer wax sheegaan waanadooda way la tageen waxa qasi kareen waa qaseen waxa wanaajin kareen waa wanaajiyeen dalka maanta anaguna sugaya midda labaad aan dhahayo waxay tahay qof walba oo soo istaago wuxuu dhahaa dhalinyaradii berita tihiin nama dhahan dhalinyaradii maanta tihiin nama dhahan fiiri 30 sano markaan gaarnaa waxaan noqonaynaa dhalinyaradii maanta 30 sanana already waxaan waa waaweynaa uma baahnin dalka laakiin waxaan u baahanahay qof walba oo meesha soo istaago inuu nagu dhiirigasho inaan nahay dhalinyaradii maanta ee dhahan maanta ayaa dalka leedahay not berito taladaydu waa taa fariintayduna waa taa dhamaantiina waa mahadsantiin waana ku faraxsanahay dhalinyarada waxaan leeyahay isku duubnaada forgad qabiilkan iska dhaafa qabiilka waxaan maqlay in koox xitaa marka qaybtood la isku raaco anigu kama warhayo dadkan dibadda jooga laakiin dadka jaamacadaha naga soo aado qabiil bay isku la socdaan forgad waxa soo dhan maanta wadanku Soomaaliyeed anagu noo baahan yahay ma ahan Soomaali kaliya cid noo baahan ma ahan Afrika dhan baa maanta noo baahan dhalinyarada Afrikaan nahay waxa loo baahan yahay inaan gacmaha isqabsano waxa loo baahan mid kale dhibkan haysto wuxuu yahay dhalinyarada iyada waxbarashada way ku yar tahay please waxa la barto waxbarashada kaliya ma aha khibrad hal la doono wadanka hal lagu soo noqdo hal la arko dadkiina waxa ay ku nool yihiin la qaybsada la arka please dadkiina waxa ay ku nool yihiin marka la arkaan ayaa dareemi kartaa waxa wadankiina ka jiro taas dhalinyarada ay ahayd haweenka iyo haweenka Soomaaliyeed waan salaamaya hool weyn bay noo qabteen markii aabayaashu dhaqasayeen oo walaaqayeen dadkina garab taagna hooyooyinkay ahaayeen dadkina koriyo hooyooyinkay ahaayeen dadkii dahabkooda noo huran hooyooyinkay ahaayeen waa ku mahadsantihiin dhabtii waan marka walba salaad tukada Ilaahay baan ku xamdinaqaa hooyaday baan u duceeyaa intaan aabahay u duceeyay laana hooyaday waxay ii tarbiyeysay oo ii dhistay si alxamdulillah rabbil alamin sida iiga jeedaan marka hooyo walba oo Soomaaliyeed waa sida hooyaday oo kale tawaan hubaa waad mahadsantihiin dhamaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi